xildhibaanka marka la doonayo in la soo doorto ayuu reerka dhex gala uu doonayo inuu xildhibaan noqdo sida caadada odayaasha iyo reeraha dadka soo xulaya waxay ka qaadaan dhaqaale ka qaadaan xisbigana dhaqaale ka qaadaya commissionkii dhaqaale ka qaadaya waxa la yiraahdaa xildhibaankii oo la soo furtay ayaa golaha imanaya hadhow tooletaas waxay sababaysaa inaanu shacabkii iyo deegaankii laga soo doortay aan waxba u qaban arrintaa dad badan baa aad u hadalaya bal arrintaa ka war way jirtaa in dhaqaale badan ku burburo doorashooyinka Somaliland gaar ahaan musharaxiinta oo aad iyo aad loo dhibo oo la moodaba kursiga in laga iibinayo marka ay tahay dhinac walba aan loo naxariisanin marka taas waa laga yaabaa inay dadka qaar ku keento naxariis darro hadhow toolo aan kula noqonin deegaankii ama dadkii uu metelay laakiin haddana waxa ka muhiimsan qofku markuu damiir leeyahay ujeedana leeyahay waxna raba inuu bedelo waxaas oo dhan waxaad ku ilaawaysaa ujeedadaada iyo yoolkaaga qofku markuu damiir leeyahay ujeedana leeyahay hamina leeyahay waxna inuu bedelo inuu rabo u malayn maayo qofkii damiir leh inuu waxa eegayo wax ka badan baa ayaa loo soo maray dalkan dad badan baa ayaa naftooda u waayay jirkooda waxya kamid u waayay oo haddana maanta aan dub ama weegin ama isku qoomamaynin markaas taas uma arko wax arqalada waxa muhiimadu waxa weeyaan in dalkan aynu meel shaynu maanta aynu gaarsiino ama dadkii naga horeeyay soo gaarsiiyeen aynu hore uga qaadno oo aynu horumar gaarsiino oo cadaalad la helo oo dadku isa soo gaaraan oo inna helin ku naaxin inna ku baktiin gaar ahaan dhalinyarada oo la moodo 70% iyo in ka badan in dhalinyarada tahay dalka ku nool in wax loo qabto inay la qeyrkood la mid noqdaan dadkeenu inay helaan nolol iyo naruuro taa weeyaan ayaga yoolkayga koobaad taasana ka shaqeynaya